habeen madow oo qabowga xad-dhaaf yahay dabaysha dhacaysa ay ruxayso geedaha wadooyinku maran yihiin roob aan kala joogsi lahayn ka da'ayo magaalada laydhka baxayaana uu si daciifa u muuqanayo guri yar oo duuga oo geeska magaalada ku yaala waxaa qol ka mida fadhida gabar yar oo da'deedu 9 jir tahay magaceeda waxaa la oran jiray Hodan keligeed ayaa gurigan joogta indhaheedu cabsi darteed way soo waaweynaadeen wajigeeda murugada ka muuqata ma aha tii caruurnimo balse waa welwel iyo walbahaar daqiiqad kaste oo dhacda waxay fiirinaysaa jidka gurigooda ka horeeya waxay furanaysaa daaqad yar oo ka mida qolkan ay ku dhex jirto waxaanay sugaysaa oo saacado badan ku qaadatay qof keliya qofkaasina waa hooyadeed waxay suuqa u aadi jirtay shaqo si ay noloshooda ugu maarayso labadooda qof halka aabaheedna sanada ka hor uu ka geeriyooday markaa Hodan waxay noqotay saaxiibka nolosha ugu dhow hooyadeed bal haddaba habeenka roobku wuxuu noqday mid muddo dheer da'aya kala joogsi aan lahayn wadooyinku madow noqdeen dabaylo ka dhacayaan cabsi iyo laydhka oo daciif noqday qabowguna uu wehelinayo saacadahana marba marka ka dambaysa way isbedelayaan Hodan waxay kaga gabanaysay qabowga roobka busta yar oo duuga balse indhaheeduna wili jidka ayay fiirinayaan oo ay ku maqnaayeen waxay cod hoose oo tartiiba ku tiri hooyo maanta waad soo daahday iyadoo aanay cidina maqlayn Ilaahay mooyaane intaa ka bacdi waxa albaabkeedii soo garaacay dariska xaafadda ku dhow codka ay ugu yeedheen markii ay albaabka soo garaaceen waxa uu ahaa mid jilicsan balse Hodan qalbigeeda waa uu ruxay kadib markii ay albaabka furtay waxa banaanka taagan nin iyo haweeney dariska iyo jaarkooda ah wajigooda waxa si toos uga muuqanaysay naxariis iyo murugo isku qasan intaa ka bacdi Hodan waxay ku tiri hooyo ma aragteen su'aasheedii ugu horeysay haweeneydii oo ku soo dhawaatay ayaa Hodan madaxeeda taabatay waxaanay isku dayday inay Hodan su'aashii ay weydiisay uga jawaabto balse ilmo ayaa ka soo horeysay jawaabtii oo indhaheeda qoysay ugu dambeynna hadalkii ay ku tiri ayaa Hodan qalbigeeda ruxay waxaanay ku tiri hooyo ma soo laaban doonto maanta hadalkaasi waxa uu noqday mid hawada sabaynaya Hodanna aanay wili fahmin waxaanay u malaysatay in ay ku tiri hooyo way soo daahaysaa ama way xanuunsatay oo kale laakiin markii ay aragtay indhaha dadka waaweyn oo ilmadu ka qubanayso qalbigeedu wuu fahmay waxay si tartiiba uga baxday gacmihii haweeneydu gacmaha ku salsalaaxaysay madaxeeda waxaanay ku laabatay daaqadii yarayd ee mar walba hooyadeed ay ka fiirin jirtay ee ka sugi jirtay jidkii guriga ka horeeyay ee ay ka fiirin jirtay waqti kaste oo hooyadeed ay sugayso roobkiina weli waa da'ayaa Hodan waxay fadhiisatay qolkii yaraa ee madooba waxa ayna ku tiri cod hooseeya hooyo waan ku sugayaa xataa haddii aad samada ku maqan tahay oo ka imaanayso ilmo yar ayaa dhabankeeda ka soo dhacdhacaysa waxayna ku dul dhacday daaqadii yarayd ee qabowga roobku ka soo gelayay marka laga yimaado roobka samada ka imanaya ee da'aya waxa jira roob qalbiga Hodan oo 9 jir ah
ka da'aya kaasoo noqonaya ilmada dhabankeeda qoysay. Subaxii xigay habeenka roobkii waa uu yaraaday, balse gurigii yaraa waxa uu u egyahay mid mugdi ah. dad badanina way yimaadeen, qaraabo, deris iyo dad aanay hodan hore u arki jirin. qof kastaaba waxa uu ku celcelinayaa erayo isku wada mid ah, samir iyo iimaan iyo wixii la mid ah. laakiin samirku waxa uu u eg yahay hodan qalbigeeda in aanu waxba ka dejinaynin. hodan waxa ay fadhiisatay meel gees ah iyada oo gacanta ku haysata maryihii hooyadeed u gelin jirtay marka uu qabowga iyo roobku yimaado. mararka qaar waxay sanka u dhoweynaysaa maryaha hooyadeed si ay urteedii u dareemi karto. balse saacada ka bacdi waxaa la dareemay rayrayn iyo farxad. dadku waxay isgaadhsiinayeen erayo ay kor ugu dhawaaqayeen. maxayse yihiin ereyada ay kor ugu dhawaaqayaan? taasi waa mid hodan guusheeda soo dhoweynaysa, balse may fahmin weli iyadu. dadkii iyaga oo hormo ah ayay ka baxayeen guriga, waxaanay aadayeen dhakhtarkii laga sugayey in laga soo saaro meydkii hodan hooyadii. isbeddelka cadceeddu waxay noqotay inay gelin dambe saacaduhu isu beddelaan, balse hodan weli wax ay ku faraxdo ma hayso. waxay indhaheedu fiirinayaan jidkii guriga ka horreeyey ee ay hooyadeed ka sugaysay. sheekada qaybta labaad waxaad kula soconaysaa baartituuda. sabskraibta, laygta iyo falowda intaba xaggiina weeyaan.